shirwaynaha midawga Afrika oo sanadkiiba hal mar lagu qabto xarunta midawga Afrika ee sababa ayaa maanta si rasmi ah u fureen bilowgii shirwaynaha guud ahaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalka ama qaaradda Afrika ay leedahay shirwaynahaasi oo gudoomiyaha guddida African Union ee African Union Commission loo yaqaano Ato Cheng Peng ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay runtii waa dhacdo taariikhiya shirwaynahan maanta la furay 2012 ee xarunta midawga Afrika waa shirwayne ay kulmiyeen doorashooyinka midawga Afrika gaar ahaan commissionka oo sanadkan qabsoomi doona 29 bisha koobaad 2012 waxa sidoo kale maalinta sabtida ah si rasmi ah u furi doona dhismaha weyn ee cusub ee dawladda China ay ka maalgelisay guud ahaan qaaradda Afrika shirwaynahani waxa barbar socda shirwaynihii caalamiga ahaa ee sanad walba mar la qaban jiray waxa uu ku andacooday gudoomiyaha Chengpeng ee African Union Commissionkiisu inay ahayd 2012 sanad xasaasi ah oo taariikhda Afrika meel madow ka galay waxa uu xusay go'aamadii khaldanaa iyo kuwii wanaagsanaa ee guud ahaan qaaradda u soo qabsoomay waxaan u sheegay sidoo kale in ay dagaalo ba'an qaaradda ku soo foodiyeen kuwaas oo xusay Libya Tunisia, Ivory Coast iyo waliba Masar oo guud ahaan hogaamiyaashoodii hore xilalkii kaga qaadeen mudaharadadii caalamiga ahaa ee caalamul carab gaar ahaan waqooyiga Afrika ka qabsoomay 2011 Chengpeng tacsi iyo murugo u soo jeediyay guud ahaan qaaradda Afrika kadib waxa uu ballan qaaday inay horumar barwaaqo iyo baraari u horseedi doonaan waliba haddii uu ku soo noqdo isagoo ah musharaxa marka labaad u taagan jagada gudoomiyadnimadaasi sanadka 2012 ilaa 2016 waxa madasha ka hadlay wasiirka kale oo arrimaha dibadda ee qaaradda Afrika waxaana shirkaasi soo gabagabeeyay oo bilowgii maanta hadaladii kadib wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Itoobiya Ato Haile Mariam Desalegn waxa uu sheegay in Itoobiya diyaar u tahay soo dhaweynta qaabilaadda iyo mar walba hirgelinta shirweynayaasha qaaradda sidii amni nabadgelyo iyo dimuqraadiyad ay ugu soo dhaweyn lahaayeen diblomaasiyadda qaaradda iyagoo aad u tixgelinaya mar walba shirweynaha midawga Afrika ayaa sii socon doona muddada 4 maalmood ah ee fooda inagu soo haysa shirwaynaha midawga Afrika ee ku qabsoomay xarunta dalka Itoobiya ee sababa ay guud ahaan lagu soo afmeeray jawi aad u wanaagsan isagoo la sii baqay doono maalinta xigta haddii Allah uu dhammaystiray waxaa jiray Maxamed Ciise Aadan xarunta midawga Afrika shaqada Soomaaliland Addis Ababa